baarlamaanka ugu horeeyaan mahad gaar ah aan la koobi karin ayaan u jeedinaynaa dadweynaha reer Boosaasood soo dhaweyntii qiimaha lahayd wanaagsanayd muujinaysa shucuur wadaninimo noo muujisay kalsooni aad iyo aad u mahadsan yihiin haddii ay shacbigu soo dhaweyntoodu culayskeedana waa leedahay oo waxa weeye shacbigu soo dhaweyntiisu waxa weeye in loo khidmeeyay rabaan in loo adeegay rabaan in si daacadnimo ah wadanimo ku jirto waajibka dastuuriga nala saartay aan u gudano way waxay noo sheegayaan fartiin bay dirayaan dadka shacbiga ah soo dhaweyntooda saasaan u qaadanaynaa aad iyo aad bay mahadsan yihiin maamulka gobolka degmada iyo dhammaan shacbiga reer Boosaasood sidoo kale waxaan aad uga mahadnaqaynaa ciidamadii buuraha iyo meel walba saaraa oo nabadgelyada iyaga sugayay ammaanka iyaga ka shaqaynayay soo dhaweyntayada iyana qaybta labaax runtii ka qaatayna aad bay u mahadsan yihiin shacbigii sidoo ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanku sheegeenba ilaa garow aan ka soo baxnay ilaa aan Boosaasan nimid dariiqada noo taagnaa tulooyinka yaryarka oo daawiyadaha oo ay arkaysid dhalinyaradii iyo hooyooyinkii iyo odayaashii ay banaanka taagnaayeen nasiib darro meelba maana istaagi karin waqtiga oo ciriiraha awgeed laakiin waa jeclayn inaan meel walba aragno u istaagno dadka shacbiga salaano soo dhaweyntoodana aan ka mahadnaqno laakiin waxaan rabaa inaan halkan uga tabiyo mahadayda kulligood meel walbay joogaanba aad bay mahadsan yihiin waxaan u nimid waxa weeye inaanu ka soo wardoono gobolka iyo degmada Boosaasood dadka aan aragno shacbiga aan xog waran una warano noona warrabaan runtii way muhiimadda koowaad muhiimadda labaad waxa weeye mashaariicdan horumarineed ee ka socota dalka oo aad arkaysaan wadooyin leh oo jidad leh oo buundooyin leh nalal leh iyo mashaariic u waaweyneed oo aan malaynayo dekedeena in baarjadii alaabta keen lahayd ay jid ku soo jirto dhawaan imaan doonto iyo airportkii Boosaasood aanu maanta Jimcaha oo ahaa bisha 8deeda aanu furi doono inaan farxadaas iyo goolahaas gobolku iyo dalku gaarayna aanu u nimaadno oo kala qayb qaadano dadweynaha weeye ujeedada aan u nimid insha Allah ururada bulshada ee kala duwan Boosaasoodna iyo maamulkana waxaan rajaynayaa inaan waqti u sahlo isku wareysano wixii horumar u jira wixii caqabadaha u jira wixii dhibaho taagan inaanu iska wareysano iyo doorkooda ay ku leeyihiin horumarka dalka iyo maamulkaba aanu iska wareysano ayaan rajaynayaa mar labaad mar saddexaad oo ka mahadnaqayaa soo dhaweynta aad iyo aad u mahadsantihiin